بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ومركلة إيو برنامج كني حكرورسي كارهانا قيبتي سو كوفيد إيو غرفينتا بواقتا مانتا وحن يستيقدونا بوغلا لحظو أكتي ليك ليدي ثينكي ليك مان وقفل عيري سيدي قبدا ونا فكر سيدا رقا بوغا وحا قرينين لنا ستيفن هافي وانن شعترولا ومشاكليستا wuxuu dhashay dalka Mareykanka muddo fara badan buu arrimaha majaajiliisnimada iyo madaalinimada ka shaqeynayay buugaag kale ayuu qoray wuxuu soo saari jiray barnaamij caan ah oo la oran jiray Stephen Harvey Morning Show waana markaa arrimahaasi shactiroolnimada aad ugu xeel dheer buuga la dhahdo Act Like a Lady Think Like a Man wuxuu qoray 2009kii nuskhada fara badan ama qaybo kala duwan baa buuga laga daabacay buuga markii la daabacay wuxuu ka mid noqday buugta caalamka loogu iibsiga badan yahay sida xawliga loo iibsado dadkuna ay jecel yihiin markaa ay dadkuna inta badan ay raadiyaan buugu wuxuu ka kooban yahay 242 bog marka wuxuu ka warramayaa raggu waxay jacaylka ka aaminsan yihiin iyo xiriirka rag iyo dumarka ka dhaxeeya sida ay u arkaan at the same time dumarkuna sida iyaguna u arkaan iyo sida ay ragga ula dhaqmaan iyo ficilada ragga sida ay u fahmiyaan marka waa buugad moodo inuu xagga jacaylka u janjeero si kooban baynu markaa u dulmari doonaa marka koowaad qoraagu wuxuu isweydiinayaa ragga maxaa lagu qiimeeyaa hadday tahay dumarku maxay ragga ku qiimeeyaan ama maxay u eegtaan ama maxay ku xushaan qoraagu 3 qaab ayuu ka eegayaa wuxuu leeyahay dumarku waxay ragga ku qiimeeyaan lacagta ay haystaan ama xoolaha iyo maalka ay leeyihiin waa mid oo dumarku ku qiimeeyaan aadna markaa way u tixgeliyaan lambar 2 dumarku waxay ninka ku qiimeeyaan waxa uu haysto ama shakhsiyad ahaan waxa uu yahay qofkani shakhsiyad ahaan qofkani awood iyo kartida uu leeyahay marka xoolaha laga yimaado qofka haduu yahay qof aftahana ama haduu yahay qof awood u leh qofkaasina dumarku way jecel yihiin ama way xiiseeyaan buu leeyahay tasaddexaad waxa weeye qofkani halka uu ka soo jeedo mareer wuxuu ka soo jeedaa iska dabaqad hoosa mareer dhexe aduu qofkaasi halka uu asal ahaan ka soo jeedana waa lagu qiimeeyaa oo dumarku way qiimeeyaan ayuu qoraa u leeyahay inta marka laga yimaado qoraagu wuxuu leeyahay dumarku ragga way ka naxariis badan yihiin way ka koolkoolin badan yihiin way ka dabacsan yihiin dhaqan ahaan marka loo eego aad bi dumarka uga mataqaanay raggu dumarku uga jilicsan yihiin gabadhu waxa laga yaabaa nin nacasa ama nin doqon oo mataqaanay marka aan wax badan laga qaateen inay iska dhageysanto marka wuxuu leeyahay marka ka dulqaad badan tahay dhageysiga iyo marka la eego arrimaha noocaasa wuxuu sheegay marka haddii aad gabadh weydiiso maxaad ku xulanaysaa nin ama maxaad ku xulanaysaa nin maxaad ku dooranaysaa dadna marka waxyaabaha inta badan sheegan in isku dheedhow yihiin aad moodo sida inta badan wax ka sameeyeen inay yiraahdaan ninku waa inuu romantic yahay ninku waa inuu yahay nin guriga ila sameey ila masixi kara ninku waa inuu yahay nin alaabta iyo caruurta iyo xafaayada iyo waxyaabaha noocaas ila waxayn kara waa inuu yahay nin hooyadii iyo qosliisa ay bari kara waa inuu yahay nin xiriirka xaafadiisa ay u fiicnaan kara arrimaha noocaas qoraagu wuxuu leeyahay waxyaabaha dumarku inta badan majority-ga ay ka sameeyeen marka isagoo marka aragtidiisa iyo weerarnimadiisa qoraagu ku saleynaya inta kadib qoraagu wuxuu isweydiinayaa wuxuu leeyahay raggu iyo dumarku waxaad moodaa in ay kala danaysi badan yihiin oo ragga oo kale tusaale ahaan gabadha oo kale waxaad moodaa raggu inay inta badan ku ciyaaraan ama ay ka dhigaan kuwo inta badan mataqaanay markaa ka danaysta marka gabadhay siid ku ogaanaysaa ninku inuu ka danaysanayo iyo in kale marka haddaad ku aragtay ninku inuu ka danaysanayo ama in waxyaabo aan ku qalbin kula imanayo waxa isku dadaan xiriirka u goyso aan iska ilaaliso dhigartiisa iyo waxa uu ku mareegayna aad ka fayaabato marka qoraagu wuxuu isweydiinayaa gabadhu maxay ku garanaysaa ninka ay jeceshahay qoraagu dhowr dhinac buu ka eegayaa wuxuu ka eegayaa markaa dhinaca wuxuu sheegidoo kale hadday sheekaysanayaan oo kale inuu ninku waxyaabo fara badan gabadhii u sheego dhinacyo fara badan markaa uga sheego wax badan uuna ka qaarnin qofka hadduuna waxba kaa qaarnina taas waxay sheegaysaa qofku inuu kuu kalsoon yahay uuna ku jecel yahay qofku jecel yahay markaa wuxuu sheegaa qoraagu markaa wuxuu leeyahay waxaad ku garan kartaa in gabadhu ku jeceshahay ama inuu ninkuba ku jecel yahay gabadhe inuu wax kuu sheego lamar waxaad ku oran kartaa wax siinta oo kale haduu ninku inta badan wax ku siiyo haddii hadiyad noqoto waxyaabo kale wax ka dhigan tahay macna ahaan gabadhaasi ama ninkaasi uu ku jecel yahay dad gabadha ninkaasi uu ku jecel yahay hadaad intayna gabadhaasi uu ku jeceshay marka waxyaabaha lagu garan karo qofka inuu ku jecel yahay oo dad si socon karto iyo in kale
marka inta laga yimaado qoraagu waxa uu eegayaa uu leeyahay gabadhu marka la talinaya uu leeyahay su'aalo fara badan isweydiiya inta aydan guursanin waxay isweydiinaysaa marka waxa kamida ninka inaad iska eegtaan oo tiraahdaan yoolashaadu maxay tahay shan qodob kala weydiid tusaale ahaan buu leeyahay yoolashaadu maxay tahay yoolashaada yar yar adduunyada maxaad ka leedahay yool yar oo ama hiigsiye kooban maxaad ka leedahay markaa kuu sheego waxay ka dhigan tahay taas yani wada fahmi kartaan qofka inta nolol wada dhisan ka hor ayaad qofka isfahmi kartaan lambar 2 maxaad imika haysataa ama maxaa ku yaala ama mataqaanay maxaa ku kaysan arrimaha noocaas in weydiiso iyadoo muhiima qodobka leeyahay waxa weeyaan inaad eegto xiriirkeenu sidee buu yahay sidoo aragtaa يعني ما كون فرح سنتاي كم فرح سنين قريبا نوع عصر هذا أكتو وعقول ذيك سامركا سيدا يدرمي ساعدين ما تسكرسنو سيدا يدرمي سام سيدا أركسامة وحيبها مركا قرشها كهر لو قفتي يسكرسنين كهر سويديان مركا حسي قراءة حلي مركا قبضوا أنت نينك جورسنين كهر أما نينك تون قبض جورسنين كهر اللي يسيء وجاده waxa la kala jecel yahay waxa lagu kala jiray Ingiriiska la kala joogo in la ogaado waa mid muhiim oo marka guri la wada dhisto labadii qof ay ku wada joogi karaan hadii kale waxa imanaysa meesha inay baan timaado labadii qof marka laba qof oo isfahmeen oo noloshii guriga ka horna nolol ahayd tana ay nolol marka qaraar noqoto ay noqonaysaa ayuu qoraa u leeyahay takala qoraa ku dareeyay wax weyn ninku kolba sida uu yahay inaad la dhaqanto ayuu marka gabadhu u sheegaya tusaale ahaan hadduu ku yiraahdo waxaan rabaa gabadh wanaagsan waad marka hore adigu ku tiraahdaa noqo adigu nin wanaagsan marka adigu nin wanaagsan noqotaad gabadh wanaagsan helaysaa laakiin adigu haddaad nin xun tahay nin daba karoor wara ama nin mataqaanay marka godadlaa kolba gabadh la qabsanaya gabadhna marka kolba nin ay la qabsan doonta iyaduna oo sidaa ma noqonayso masalan waxa la yiraahdaa ninku hadduu nin yahay mataqaanay marka godadlaa oo kolba gabadh daba dhaqaaqa gabadhna soo kolba nin daba dhaqaaqda labada qofna marka inta badan iskama yeeshaan wax xiisaa ama waxay ku sii wada socon karaan markaasi ma yeeshaan qodobka dambeeyo qoraalku gabagabinaya waxa weeyaan raggu waxyaabaha ay jecel yihiin marka ay ka helaan dumarka marka la eego qoraalku waxa uu leeyahay raggu inta badan waxay jecel yihiin gabdhaha balwada lama jecla hadii tahay gabadh sigaar cabta hadii tahay gabadh khamri cabta hadii tahay gabadh jaad cunta gabdhaha noocaas mustali nooc doonaha ahaado yani dumarku haday arrimaha noocaas sameeyay raggu ma jecla inta badan marka kama helaan ninka soo weydiisana waxa koonay gabadha noocaas ma jecli kuwa ma taqaan la qabe arrimaha sameeyay inta badan waa la furaa mustaliga qoraa waa loo ka eegay waxa kale oo leeyahay qoraagu gabadha haday tahay gabadh cunto fiican raggu jecel yihiin gabadha ka cunto macaan tahay raggu jecel yihiin wala marka ayna jaariyad ahaan guursaneen haddana gabadhu inta badan marka uu ninkeedii la joogo mustali ugu dhiibi karto gabadh jaariyada oo cunto u karisa waxa laga yaabaa inay kala cunto macaanadaan marka gabadhu inay cuntada soo kala taqaano waxyaaba marka wax weyn raggu ay ku jecel yihiin iyadoo marka jaariyadu waxay nolol ay wadaagaan haddana waxyaaba marka dumarnimada laga eegayo ay gabadhu jeceshahay ninkuna marka taqaana kaga helayo qodobka lagu xigo waxa weyn xagga nadaafadda oo kale haday gabadhu nadaafad fiican tahay raggu inta badan way jecel yihiin gabadha bilaa nadaafadda ee qolkeedu istixiyaalo iyadoo isku dhaxdaasan raggu marka ma jecla dumarkuna marka nimanka nadaafadda xun iyaga laftooda ma jeclo qof kale nadaafad jecel ma jirto marka qoraa waxa kale ku eegaya marka gabadha da'da yar raggu jecel yihiin buu leeyahay gabadha ka da'da yar tahay gabadh weyn tahay masalama ka raggu ma jecla gabadha ka da'da yar tahay raggu jecel yihiin waa angalada ama noocyada raggu marka ay ka eegaan qaybta ugu dambaysan ku soo gabagabeeyna waxa weeye xiriirka marka kala duwan ka soo waranay haday tahay isfahanka haday tahay wada noolaanshaha haday tahay waxa la isweydiinayo ayuu qoraagu si guud u qaada dhigaya وانا بوك aad u qiimo leh qodobada uu ku wareegaya ama cyclist ku wareegaya intaan weey intaan buug kala mid ku kulmi doono waxaan kaga tagay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh